daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka sportiga oo aweysin walba oo ahada aad ka daawan doontaan boggayaga aan ku leenahay Facebook. barnaamijkana waxaa si wada jir idinkugu daadiinaya luul shahluu iyo anigoo cabdiqaadir boosa. dhanka farsamadana waa cabdimaajid cusmaan. daawasho wacan. taageerayaasha reer Hiiraan ayaa wali gudaha ugu jira masraxa beledweyne kuwaasoo wali diidan kamid ahaanshaha Super League Hirshabelle, laakiin taageerayaashan ayaa wali tabaya xidigoodii Waare oo qaba dhaawac lugta ah iyo diyashahoodii Ugaaska oo qaba dhaawac dollar ah. laakiin daayarka xuud ee lagu naaneyso Cumar Xaashiga yara ayaa bandhigyo cajiib ah ku qaadanaya gigidan ka sameysan jicibta. wargeysyada ka soo baxa Maxaas ayaa qaba walwal ah in xuud uu kaliya doonayo in cariishkiisa bariga magaalada loo bedelo daar dheer taasoo niyad jabin doonta taageerayaashan aaminsan anaga kaligeen aan kubadda haysano 90ka. kooxda shabaab ayaa dalab 80 milyan oo kaash ah iyo laba inqamaasi ku gorgorinaysa kabtanka banaadir Cumar Finish kaas oo ay u arkaan bedelka ugu wanaagsan ee Axmed Diiriye oo xagaagan ka fariisanaya masraxa kubadda cagta. kooxdan bilcaanshidan darteed nafta isu dhaafisa ayaa xidigan u arka mid xirfad iyo nooc aayad ay rabaan u isticmaali kara kooxaha kale ee ka soo horjeeda si ay u sii xajistaan kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka. tiifiyada kooxdan qadar laga leeyahay ayaa goosgoos u sii deynaya goolkii kabtan Finish uu 90 ka dhaliyay kooxda midowga taasoo kabtankii hore ee xadhun ka dhigtay midka loogu doondoonista badan yahay suuqan lagu gorgoriyo xidigaha jannada loo xawili karo. xidiga mahdi guuleed ayaa ku guuleystay laacibka bisha ee horyaalka yatakabaru oo looga yeeray xulkiisa Itoobiya. kulamadii TPLF ayaa kooxdiisa fila Soomaaliya u sameeyay 8 caawin iyo 10 gool 4 kulan taasoo xidigan fursad u siinaysa inuu ka sii ciyaaro horyaalkan aan laga dhadhamin leenta. konton jirkan sida wanaagsan ugu hadla luuqadda Amxaariga ayaa sidoo kale u hanqal taagay booska Cabdi Xaashi kaasoo saluugsada shaxda macalin Farmaajo ee maalinba Kenya ama Itoobiya mid cad u yihiin. xidiga Sheekh Shariif ayaa gooni ugu tababaranaya masraxa Jasiira isagoo u yeertay 3 macalin oo ka caawiya jirdhiska si uu isugu diyaariyo kulanka 8 February ee soo kulaalaya. konton jirkaasi qamiisii suud ku doona ku ciyaari kara ayaa 3 dhaliyay kulamadii kooxihii isbahaysiga shabaab iyo xulkii qaranka Itoobiya taasoo xidigan Tiger dhibo u arko fila Soomaaliya kooxdii ugu liidatay uu wajaho. suma wallahi ayaa calimaadi ka dhigtay macalin u gooniya maadaama qoregeygii caddaa uu haysta khibradii 90kii xilligaas uu wadanka uu galay marxalad la mid ah tan maanta. wakiilka xidigta reer Sweden deeqa Afromino Rayola ayaa fududeynaya sidii xidigtan ay ugu wareegi lahayd horyaalka xayawaanada. laacibadan oo waraysi siisay Universal ayaa sheegtay in ay jeclaan lahayd in mar uun masraxa qolka dhalbadelashada ay ku aragto lamaane buumadiisa ay u eg tahay garoonka. wargeysyada Stockholm ayaa qoraya in da'yartaas kaliya baahideeda ku haqabtiri karto xidig ciyaari kara 5 maalin si ay u kaaftoonto laacibiinta Soomaalida ee saacad ama 90 daqiiqo uu garoon ku jiri kara. dhakhtarkeeda gaarka ayaa hadda fududeynaya qaliin isbees leh oo aysan ku dareemi doonin wax dhaawac ah maadaama horyaalkaas uusan lahayn wax gurmad ah xitaa haddii ay kor u qeyliso. xidiga Cabdi Dhaanto ayaa deactive iska dhahay bartiisa Facebook ka gadaal markii xidiga asal ahaan ka soo jeeda Romania ee Qoomalyare uu comment aan ugu qoray The Black Man. laacibkan ayaa ereygaasi u arka mid cunsuriyad leh dibna uusan ugu soo laaban doonin garoomada ilaa uu helo raali gelin buuxda. dhanka kale xidiga cadaannimadu ku weyn tahay ee Dayax ayaa ku taageera Mr Dhaanto jawaabta uu ka bixiyay ereygaasi laakiin laacibkan aaminsan farxiya tiri ayaa lagu amaanaa inuusan ka caroon midab uu ka taqluso waa hore. xidigaha Faarax Murtiile Ajax Fadumina iyo Bosbas ayaa isaga huleelay gegida Universal Stadium kadib markii ay qabteen macalinkoodii Abukar Mahdi. macalinkan qarxii sooba soo qoray caawa qaybtii 10aad ee qoto waa shidan tahay ayaa xidigahan live u soo gala saacad u arkaan mid lunsaday xaqoodii YouTube-ka. laakiin UEFA ayaa Fadumina iyo Ajax si gooni ah uga baari doonto maadada ciyaartooyda ka dhigta high ama mood ka hor dhageysiga dacwadooda. halka xidiga reer Somaliland Faarax Murtiile la sugayo soo kabshashadiisa. xidigta la kaxajo Wacays ayaa soo dhaweysay go'aanka xidigahan gadoodsan
laakiin uga digtay inay jexjeexaan shahaadooyinkoodii universal maadaama ay iyadu ka qoobameysay in maanta ay tahay CV la'aan. waxaa la baafinayaa kabtankii hore ee kooxda baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed markii cid ugu wardambeysay waxa uu YouTube-kiisa subscribe iyo share ugu dhex raadinayay gudaha Istanbul. haddaba cid alaala iyo ciddii aragtay xidigan xiran nambarka maama malyuun waxaa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiskeena Laascaano ama waxaad dislike saari kartaan muuqaaladiisa YouTube-ka isagaaba live dacwo ah soo gali dooneen. intaas ayaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni kaftanka sportiska si wada jirna barnaamijka waxaa idinkugu daadihinayay luul shahluu iyo anigoo boos ah gabagabada barnaamijka heestii hee aawa cajiinka anaa kaa qasa xidigii fanka reer muqdisho iyo soomaaliyaba daawasho waca darba boos كان شلين تبصر علين شنطان كن شيشيت كن عاو عجيك أنا كقصة رمضان كن والين دنا كان شلين تبصر علين شنطان كن شيشيت كن عاو عجيك أنا كقصة أقول كان كدين وروا إلى ما تعسى وسكذا ليه لولا راك وسودري عاونا دورا نوزوا أقول كان كدين وروا إلى ما دعسى وسكذا ليه دولار راك وسودري